si aan faahfaahin dheeraad uga helna jawiga doorashada ee maanta iyo sidoo kale waxyaabaha suurtageliya doorashooyinka xasiloon ee Jabuuti ka dhaca shantii sanaba hal mar. Waxaanu khadka telefoonka kula xidhnay shaqulbeledka guud ee beelaha Ciise Sheekh Boolax kaasi oo ku sugan Jabuuti. waxaana ka waraysan doonaa jawiga doorashooyinka, waxyaabaha laga baran karo iyo sidoo kale xilliga ay soo xidhmayso codaynta doorashadani. jawiga codka maanta sida loo dareerayna waa si aad iyo aad u qurux badan oo maxay foodka dee waxaa loogu dareeray si aad u qurux badan oo nabadgelyo ku jirto oo xadaarad iyo ilbaxnimo ku jirto. wax dhiba oo ka dhacayna ma jiro iyo wax ma garanaysaa khilaafa iyo wax isdiiday. si qurux badan oo aad iyo aad u qurux badan buu socdaa oo aad u qurux badan oo la oran karo wallahi dadku waa dad bislaaday oo u bislaaday ma garanaysaa wadaninimada iyo habka maxay ahayd codaynta. goobaha codayntu xilmay furmeen maanta xilmaysa xidhmayaan 6 subaxnimo ayay furmeen ilaa 6 barka ilaa 7 way xidhmayaan insha Allah. imika Jabuuti waad ku sugan tahay inta ogaalkaaga ama warbixinadaad helayso ilaa hadda intee codaysay bay kula tahay? wallahi dadku saaka de 5 subaxnimo way soo dareereen oo dhulka codaynta way sugayeen inta la furayo codaynta iskooladay hor joogeen iyo goobaha codka iyo hor joogeen wax yar baa haraan isleeyahay inta ugu badan wax yar baa haraan isleeyahay oo aad bay dadku xalayba diyaar bay hayeen. marka laga tago doorashada iyo codbixinta bal noloshii kale asaasiga ahayd ee magaalada wax kala iibsigii iyo goobihii kale ee shaqayn jiray maalmaha kale bal ka waran shaqadooda. nolosha wadanku caadi buu socotaa oo sideedii iskaga socotaa wax isbedel ma jiro. nolosha wadanku sideedii iskaga socotaa. waxaan doonayaa su'aal ka weydiiyo bal loolanka doorashada ee musharaxa mucaaradka iyo musharaxa xisbiga maxaafidka sidee looga dareemayaa gudaha Jabuuti? musharaxan cusub waa nin siyaasadda u bislaaday sida uu u dhaqmayo oo habka uu dhaqmayo iyo ka arkaysa inuu yahay nin siyaasi ah oo aad u bisil. wax arqalada iyo wax ma garanaysaa xamaasada iyo wax ku ciinayna ma jirto. de uuna marayaa oo foodku si fiican buu iskaga socdaa oo uu wacyigelinna uu ku jiraayo way marayaa fooday uuna codeeyay madaxweynuhuna uu codeeyay marka mas'uuliyiintu way codeeyeen. wax dhibo iyo wax arqalada oo macnaha iyo wax ay kacdoon oo ay wadaan ma jirto. xisbigani maanta madaxweynaha ninkan soo dhigtay foodka waa nin isaguna si degan oo ma garanaysaa ilbaxnimo ku jirto foodka uga soo qayb galay. doorashadana waxay dhex maraysaa madaxweyne Geelo oo mar kale doonaya markiisii lixaad inuu talada ama majaraha Jabuuti uu qabto 5 sano ee soo socda iyo mucaaradka oo saaxadda siyaasadda musharaxnimada ku cusub. waxyaabaha aad leedahay Ismaaciil Umar Geelo waa lagu dooran karaa oo shacabka Jabuuti mar kale way ku dooran karaan maxaad ka xusi kartaa? de maanta wax caalamka oo dhan uu xusayo horta taasi wejan oo Ismaaciil Umar Geelo wax qabadkiisu wax de la qiyaasi kara maaha muddada uu joogo iyo waxa uu qabtay way kala miisaan weeyeen. muddada uu joogo waxa uu qabtay baa ka weyn oo waxa weeyaan maanta wax de la qarin karayo amba de indhaha bilaadanka la oran karayo maaha waqtigaas uu ku qabtay. wuxuu qabtay madaxweynuhu wax waqtiga muddada uu joogo wax ka badan buu qabtay oo madaxweyne intaasoo muddo caynkaas ah dal intaa la eg isbedel cayn intaa la eg dal ku sameeya weli lama arag caalamka. muddadaasi inkastay ku koobneed haddana waxaan arkaynaa oo de caalamku indhaha caalamku beesha caalamku de arkaysa horumarka uu dalku gaaray iyo halka uu socday wax de indhaha laga laaban karo maaha. de nin ragiina warkaya nacasna loo sheegi maayo maanta wax qabadkaasi oo wax muuqda oo wax aan la qarin karayo maaha. sidaa darteed waxaan isleeyahay madaxweynuhu markan iyo mar kaleba ina bulshada Jabuuti ay diyaar u tahay baan u malaynayaa sidaan filay. Jabuuti inta badan doorashooyin aan muddo kordhin la kulmin baa ka dhaca oo xilligooda lagu qabtaa inta badan qalalaasay iyo isku dhac lagama soo wariyo doorashooyinkaasi. tan imkana waxaad ii sheegaysaa in jawi degan ay ku jiraan dalka iyo dadkuba maxaa sababay in doorashooyin degan ay inta badan Jabuuti gasho? wallahi waxaan soo karaa inay sida habka aynkaas ay wax socdaan waxaan u malaynayaa ama la soo karaa waxa weeyaan horta dhaqanka dadka yaa maxay dhaqan miisaan leh. dadka reer Jabuuti dhaqankooda yaa ah dhaqan miisaan leh oo kala dambeyn leh oo ma garanaysaa ixtiraam badan leh. sidaa darteed iyaga oo sharciga de wadankana u hoggaansamaya yaa de keenaysa inay maxay si qurux badan oo ahmiyad leh ay wax u socdaan.
xili ma la filayaa in doorashooyinka lagu dhawaaqo natiijadooda hordhaca والله دي نتيجة هرتدعها عاوض ولا شاعين دونا ساعدها ضمبي تيروين كمركا جوما عودين طلعوا تيرادو بلامي دونتا إلا دي مقرن ساي تيرادا أي صواف جرم سنة ولا ترين دونا أو دي عودة قربين طلعنا يلا ترين أو لا شاقي أو لا شاعيني مركا عاوض ساعدها ضمبي ولا وجاكر نتيجة هرتدعها إن شاء الله natiijada rasmiga ana xil ma la soo saaraya إلا صباحا ayaa iyadana lagu dhawaaqaya صباحا لو دواق إن شاء الله ولا وجانا صباحا goobjoogayaal caalamiya ayaa jooga sida la baahiyay goobjoogayaasha caalamiga door noocay ay ka qaadanayaan doorashadu inay si xoog iyo xalaal u dhacdo goobjoogayaal caalamiya ayaa jooga oo goob walba jooga oo tagay oo caalamka oo dhan ka socda oo foodka iyo habka u socdo iyo wax badan ilaalinaya iyo maxay diblomaasiyiintii wadanada caalamka ee Djibouti joogay iyo indheer garata kale iyo xisbiyadani oo maxay ahayd observatoryadooda xisbiyadani maxay ahayd foodka soo dhiganaya qaybahooda maxay ahayd controlka eegaya habka uu socdo marka guddiyaal aad u badan baa ayaa inta ka shaqeynaya oo heer caalami iyo heer gobol iyo heer qaranba leh يا محيي أريطا قاركايا أو قبل بتجايا إلا إمكانه وح سو صارين أو محيي أن ولا جاهي نمجرو waxay sheegayaan ilaa imika inay si fiican oo qurux badan ay u socoto oo maxay qobol baa isteedii gudinaysa xilkeeda